Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkayga. Maanta waxaan sameysanaynaa chicken iyo rice yar oo fudud. Chickenka spiceska jeceshahay waa u isticmaali kartaa. Anu intaas oo spices oo chickenka loogu talagalay iyo saliid iyo filfil iyo cusbo iyo coriander shiidan, paprika, peri seasoning, huruud, waxyaalo badan oo isku qasqasay. kaas waa jumbo, kaana waa waxaan isku qasqasay. intaas oo isticmaalnaa insha Allah. hadda waxaan ku darayaa seasoningska ama spiceska hadba saa u taqaanid. kii ugu horeeya ku daray maraq digaag buu ahaa. kana waa huruud yar, just color yar oo macaan bay siinaysaa fiican. marka thyme insha Allah hal baan igu sheegayaa. paprika, waxaan kaloo ku darayaa insha Allah peri seasoning way taa. adu ayu nooc laazim maaha waxaan ku darsanayna adu ku darsatid as long as seasoning fiican oo tastigaada anfacda ku darsatid. kaas waa family chicken seasoning. kaasna waa coriander ama kabsar caleen shiidan. kaasna waxaan u maleynayaa inuu ahaa barbecue seasoning. kaasna waa another chicken seasoning. kaasna waa thyme ama dill. kana waan kuwa ani isku dardarsaday waxa seasoning adduunka yaalan isku dhex qastay weeyaan. waxaan ku darayaa saliid yar, olive oil yar soo yacni nooga qalin, iyo waxaan ku darayaa apple cider vinegar yar ama in khal ah haysatid baa ku dari kartaa, soft buu kaaga dhigayaa, iyo jeex liin ah. dadka badan waxay dhahaan chickenkayga asagoo dry buu soo baxaa. sida u season garaysid bay chickenkaada ku xiran tahay natiijadiisa dhamaadka. marka always adu ugu roonow waxyaalaha dhacaan fiican bay u yeelayaan. marka wakaasa chickenkeeni waa ready. ovenka la gelinayaa 1 hour. anu bac baan ku xiranayaa. bacdaas roasting bags baa la dhahaa, dukaamada badanaa waa laga helaa. bacdaas saas afka uga xiranaysaa 1 hour baa gelinaysaa ovenka. marka hadda waxaan sameysanaynaa bariiskeeni intuu ovenka ku jiro. chickenka yacni wax kale kaagama baahna, ovenka saa ugu tuurtay asagoo ready ah kaaga soo baxayaa. hadda bariiskan sameysanaynaa insha Allah. saliid baad ku shubanaysaa digsigaada, saliid in kugu filan. toontii iyo kabsar caleenta baan xaggaas ku tumanayaa. saliidda markay karkarto waxaad ku ridanaysaa basashaadii ama 1 xabo ama 2 xabo qiyaastaada markasta. anu waxaan ku riday 1 xabo oo medium size ah. 1 xabo ma ahayna jeex weyn buu ahaa oo 1 xabo u dhigma. marwa spices bariiska loogu talagalay kaas ugu roono. intaas baa isku shiilanaysaa. marka intaas isku shiishid oo si fiican isku dhex galo waxaa ku darsanaysaa toontaadii kabsar caleentaada soo shiidatay. intaas weelka ku hartana biyo yar baan kusoo dhaqdhaqayaa. marka wakaa si fiican iskugu walaaq ama isku dhex geli. cusbo baa ku darsanaysaa. marka hadda cusbo yar baa ku darsanaysaa. haddana bariiskaagii baad ku shubanaysaa ee kuu dhaqanaa ama kuu radsanaa. ana 1 saac buu bariiskaas biyo ku jiray. marka intaas marka si fiican iskugu dhex gelisid waxaad ku darsanaysaa ama maaji ah biyo kusoo samaysatay ama biyo cad oo kulul, labadaba waa optional. ani biyo kulul bas baan isticmaalayaa. usually waxaan isticmaalaa 1 xabo vegetable stock baan biyo ku radiyaa, anna waan ku daraa. maanta biyo cad kaliya isticmaalay, maalba waa si. marka biyihiisaas ku ritid markuu hal mar soo karkaro dabkood ku gaabsanaysaa. biyahana always ha ka badinin. haddaad bariiska ka dhex arkaynin that means uu ka badan yahay. marka waad daboolaysaa 30 minutes ku karayaa insha Allah. markuu ku karo butter baan hadda korka ka saaray, ghee butter suu iskugu dhegdhegin. marka wakaa bariiskeeni waa diyaar. hadda chickenkeeni baan kasoo saaranaynaa ovenka insha Allah. waa iska qado yar oo easy ah, complication dan lahayn. dadka chickenka bacdaad ka furanaysaa dhacaan iyo wax fiican buu dhalay.
dhacaanka oo bariiska xataa ku darsan kartaa markaa cunaysid. marka wakaasa waa ready wuu kulul yahay. marka wakaa chickenkeeni maasha Allah tabaarakallah iyo bariiskeeni. salad baa ku darsan kartaa moos liin basbaas waxaa rabtid. marka ku mahadsantahay channelkayga inta mar koobaad kusoo noqotay daawasho wacan. Thank you for watching. I hope inaad enjoy garaysan videogayga. mar labaad mar saddexaadna videoyaal kalena waan soo wadaa insha Allah. subscribe-ka iyo like-ka iyo comment-ka iyo share-kaba intaba waa dhankiina. wakaas bariiskeena waad aragtiin, chickenkeena dawaka indhahayna baan ni macalina. marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.